assalaamu calaykum akhyaarta. maanta waxaa idin wadaa waxa loo yaqaano dib u dhigga ama procrastinationku waa dib u dhigga hawsha. sidoo kale procrastinationku waa inaad fududaysatid hawl ku sugaysa ama shaqo lagaa sugayo inaad fududaysatid oo kadibna aad ka dhigtid wax aan dhib lahayn. marar badan ayay kugu dhacdaa, anigana igu dhacdaa procrastinationka ama dib u dhigga. maalin walba waxaad qabanaysaa hawl, ama waxaad tahay qof shaqaynaya, ama waxaad tahay qof ardaya, ama waxaad tahay qof hooyo ama guriga joogta. waxaa laga yaabaa hawlo badan oo ku muhiima inaad dib u dhigtid oo aad dhahdid iska daa hadhow ayaan qabanayaa. marka macnaha procrastinationka ama dib u dhigga waxaa laga wadaa sidaas: inaad fududaysatid hawl ku sugaysa oo aad ka dhigtid inaad hadhowda qaban kartid ama ay tahay wax fudud. marka waxaan idiin sheegayaa 5 qodob oo aad isaga ilaalin kartid ama aad aad uga badbaadi kartid dib u dhigga ama aad ku baajin kartid. marka 5 qodob waxaa ka mid ah: qodobka koowaad, inaad samaysatid xasuus qor ama note ama diary book inaad isticmaashid. lambarka labaad waa inaad mudnaanta siisid ama aad xulatid yoolalka la higsan karo. lambarka saddexaad waa dib u eegista ama dib u hubinta bartilmaameedyadaada ama waxa aad bartilmaameedka ku ahaa. diirad saaridda ama inaad diiradda saartid oo aad joogtaysid inaad wax diirad saartid. lambarka 5aad waa inaad naftaada abaal marisid ama aad aqoonsatid hawsha aad qabatay. procrastinationka ama dib u dhigidda waa waxa ugu xun oo qofka naftiisa dib u dhiga ama horumarkiisa dib u dhiga. markii lagu leeyahay dib u dhigiddu waa caqabadda ugu weyn ee qofka waxqabadkiisa markuu wax qabanayo. haddaba daawade, waxaan kuu sheegayaa haddii aad ku dhaqantid fariimihii ama qodobadii aan ka soo hadlay, waxaa aad arki doontaa isbeddel inuu kugu yimaaday, ama aad iska ilaalisay, ama aad aad iska baajisay dib u dhigidda ama procrastinationka. haddaba maalin walba waan ku ogahay, maalin walba hawl ayaad dib u dhigataa iyadoo hawshaas ay muhiim ku tahay. waad fududaysataa oo waxaad ka dhigtaa wax fudud oo aad qaban kartid hadhowdii, kadibna hadhowdii way kugu adkaataa hawshaas qabashadeeda. marnaba ha isku dayin inaad hawl dib u dhigatid ama aad tiraahdid hadhow ayaan qabanayaa, oo hadhowdiina aad ku mashquushid wax aan macno lahayn sida social mediaha iyo waxa la midka. marka waxaan kuu sheegayaa dib u dhigiddu waxa kaliya oo waxa weeye qofka xitaa horumarkiisa dib u dhigi karta, ama qofku inuu guul gaaro ay caqabad bay ku noqon kartaa. haddaba haddii aad rabtid inaad guul gaartid oo yoolkaaga ka mir dhalisid ama waxa aad qabanaysid, iska ilaali inaad dib u dhigtid hawshaada. mar walba focus-ka saar ama diiradda saar hawsha ku taala, oo kala xulo bartilmaameedkaaga iyo waxa aad qaban kartid, oo isticmaal xusuus qorrada ama joogtee inaad wax diirad saartid ama dib u eeg targetkaaga ama waxyaabihii aad bartilmaameedka ku ahaa. dhammaantood waxay kaa ilaalinayaan inaad dib inaad hawl u dhigatid. haddaba daawade, muuqaalka haddii aad daawatay uu ka cajabiyey, fadlan subscribe noo saar oo nagu dhiirigeli bisaan kugu soo badino barnaamijyadan oo kale.